Which channel? We are the public broadcaster from Israel. You are from Israel? Yeah. Actually, I don't want to No. interview. Thanks. So just מאוד לא אהב את זה, הוריד אותנו בשום מקום, אמר שהוא לא מוכן לקחת מאיתנו כסף כי אנחנו הורגים את האחים שלו וכל הדברים האלה. כשאני ניגש ומציג את עצמי כישראלי, אז חלקם מאוד בעדינות אומרים תודה רבה, לא תודה. אחרים, חלק גדול מהסעודים. Are you a Qatar fan? Yes. And what is the... From which TV you are? We're from Israel. Sorry. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mowduucan aan maanta kula wadaagi doono waxaan hubaa inta aad daawanayso in aad xoogaa raynrayn aad dareemayso in aad farxad iyo xoogaa kabasho karaame aad dareemi doonto waxaan kuu soo bandhigi doonaa muuqaalo kala duwan ilaa 8 ama ka badan oo muuqaal oo ku saabsan xaaladda ay ku sugan yihiin saxafiyiinta israa'iiliyiinta ah ee u imaaday inay koobka adduunka tabiyaan طبعا قدر مرة هدي أي كوب أدون مرتجلينيسو كما ممنوع كرتين إمادان وإنات وفصحتها إن إمادان هذا صحفيين تاز محي كلا كل من جماهير تعربته حليات قارئ كو قصبنادن إن أي وضما كلا شاكتان. Where are you from? بل حليات قارن sidoo kale in microphone-kooda ay qariyaan farta cibriga inay qariyaan arrin muujinayo shucuubta carabta iyo shucuubta islaamka inaan la bedeli karin haddaba inta aan muuqaalka gelin koobka dashaha soo qaado kadibna la soco xalaqadan laakiin inta aan muuqaalada ku soo bandhigin haddii aan ku dhahay qiyaas talow jamaahiirta ugu badan ee saxafiyiinta israa'iiliyiinta ay ka sheeganayaan ama jamaahiirta ugu badan ee nacab ama bahdilay saxafiyiintaas yuhuudda talow ma qiyaasi karta haddii aan ku dhaho maxaad iigu jawaabi haddii aad leedahay masaari طبعا kama qayb galaysa masar koobka adduunka ama aad is leedahay iiraaniyiinta sidoo kale maya jamaahiirta ugu badan ee yuhuudda ay ka sheeganayaan ama saxafiyiintan israa'iiliyiinta indhaha ka galay waa جوابته حكوها يو إسرائيل كان אחרים, חלק גדול מהסעודים, התייחסו מאוד לא יפה. شعب كسعودي جماهيرته السعودية ولا ليه كروا جماهيرته أقوى بدن ما دام يعني الدرس أي قدر ليهين أي إيمان كران جوارده ذكو إيمان كران وجماهيرته أقوى بدن بهدي شيء صحفيين تس إسرائيليين تا بل أي آد أوجا شجنايان إن واحد لبايهين جماهيرته السعودية أرموجنا يو دمير كأمض إن اللي بدل كرين هذا مرك أقوى رأي مقال كان أقوى ساقاده صحفي كان إسرائيل جو حليه هاي أفر دولة ضد عربيات أين هشيس لصحيحني طبعا هشيسكي تطبيعي إمارات كأوهرموت كأوها إمارات كبحرين نظام كعصبة السودان أضوء قياس أفر ودن أمالين هايين ساسو كله وحليه هاي أفر ودن أين هشيس لصحيحني wax isbedelay laakiin ma laha jamaahiirta carabta sidii iyo si ka daran ayay nacabtahay wax isbedelay ma lahan אחרים, חלק גדול מהסעודים, התייחסו מאוד לא יפה. אני חושבת תחושת ביטחון אישי בהחלט קיימת, אבל יש הרבה ניסיונות של הרבה אנשים כאן, מכל מיני מקומות בעולם הערבי, לצאת נגדנו בעצם, כמו ששמעת עכשיו אולי ברגע זה בשידור חי, משום שאנחנו מייצגים את הנורמליזציה לצורך העניין, זו נקודה מעניינת, ומעבר לכך אספר לך שאת יודעת, משאלת הלב אולי של ישראל עם 4 מדינות ערביות שחתנו איתם על הסכמים בשנים האחרונות, אז יש גם עמים. عليه ما أقانو محي نو سمينايان محي نو نعبيهين محي كراهيين نوغو هيان يعني سؤاشاس و اسويدينايا مقياسا كرتا دقونimada meesha ay gaartay adigoo 24 saac dilaayo adigoo 24 saac guriyo burburinayo adigoo 24 saac dhulkoodii haysto adigoo mashruuc dad meelahaas caalamka shuddaad al-afaaq caalamka laga kala keenay oo dhul muslim lagu beeray mashruuc gumaysi raqiisa ayaad leedahay maxay noo nacabihiin wuxuu leeyahay xitaa xiliyada qaar jamaahiirtaas carabta markay ogaadaan in aan israa'iiliyiin nahay kuwa khalaas way iska dhaqaaqaan ayagoon waxba dhiin kuwana way nacaayaan kuwa nacaaya ee sida xunoola dhaqmayeen wuxuu leeyahay waa sacuudiyaanka maqtaca kale xiga wuxuu ka imaanaya suuq waaqif ninkan dhalinyarada qadariga ah meeshaas joogay saxafigan ayaa yiri bal waxbaan ku yiri weydiin isdiyaari ninkan marka wuxuu maleynaya macnaha saxafi caalam kale ka imaaday miska caadi ah kalkaasuu yiri xageed ka socotaa kanaalka tahay Israa'iil oo noo kala salaamu calaykum sidaan oo kale כשאף היה מוכן להצטלם. Hello, where are you from? I'm from Qatar. Oh! Okay, just let me to check. Which channel? אבל כששמע מאיפה אנחנו, ברגע אחד ירד לו כל החשק לדבר איתנו. We are the public broadcaster from Israel. For what? For what? Israel. You are from Israel? Yeah. Is it okay? No. Why? Because What's your name? Mohsen. Mohsen. What do you do for living? Like? Actually, I don't want to interview. Thanks. So just sidoo kale maqtaca ama videoga ugu caansan saacadii la soo dhaafay waa mid kan Israa'iiliga hole waxaan wajahaynaa ayuu yiri xaalad lugahanaga ay madaxa nooga yaalaan madaxana lugaha nooga macnaha maalintanad ay nagu daba gadoontay ayuu yiri יום האפן ששם דברים בפרופורציות אני
wuxuu yidhi tagsiile ayaan raacnay tagsiilaha markuu ogaaday inaan nahay israa'iiliyiin wuxuu yidhi xitaa lacagna idinkama qaadayo waddada bartankeed ayuu nagu dejiyey yidhi ka dega tagsiga asagoo leh walaalaheen ayaa dishaan walaalaheen muslimiinta ayaa dishaan זה התחיל בבוקר כשעלינו על מונית והנהג גילה שאנחנו ישראלים, מאוד לא אהב את זה, הוריד אותנו בשום מקום, אמר שהוא לא מוכן לקחת מאיתנו כסף כי אנחנו הורגים את האחים שלו וכל הדברים האלה. sidoo kale wuxuu yidhi madcam micnaha restaurant bar meel maqaayad wax laga cuno ayaan soo galnay sidoo kale markay ogaadeen in aan israa'iiliyiin nahay wayna ceyriyeen waxba nagamay gadin wax yaraan kuu daayo ku soo noqon doonaa הגענו פה לאיזו מסעדת חוף לצלם אייטם על האנשים בחוף. הבעלים ביקש לדעת מאיפה אנחנו, גילה שאנחנו מישראל, הביא לנו מאבטחים שיעיפו אותנו, לקח לי את הטלפון, ביקש שאני אמחק כל דבר שצילמתי שם, הרגשתי מאוים, אני ישראלי במדינה עוינת, צריך לדעת להתמודד עם הדברים האלה. sidoo kale cadadkan kala duwan waxay isku dayayaan inay waraystaan wax weydiiyaan jamaahiirta carabta markay ogaadaan inay israa'iiliyiin yihiin qof walba iskaga dhaqaaqaya. Are you a Qatar fan? Yes. And what is the... From which TV you are? We're from Israel. Sorry. Excuse me, sir, can I interview a few words before the game? مرحبا اهلا شو اخبارك؟ الحمد لله. انت من لبنان؟ ايه. انا من اسرائيل يا اخي. انت من اسرائيل؟ انت وصلت لعندي. انت شو جايب؟ انت اجت لهان. الله فلسطين. ما في اسرائيل؟ في اسرائيل يا سيدي في اسرائيل. وين انت من وين؟ انا من اسرائيل. فلسطين. فلسطين مش اسرائيل. انت بتقول فلسطين انا بقول اسرائيل. لا لا فلسطين اسرائيل مش موجود. يعطيك العافيه. sidoo kale midkan wuxuu maciin biday in uu sheegto Ecuador oo yiraahdo aniga Ecuador ayaan ahay kadibna ay ogaadeen ay dhahaan no afkaan loogama hadlo Ecuador waxaa tahay Israa'iil baqaaya. Where are you from? Ecuador! Ecuador? No, this is not Ecuadori language. Yeah, Ecuador TV. No, free Palestine. Yeah, free. sidoo kale cadkan kale Excuse me, can you ask a few questions? You are live? מה מצב הרוח של איפה הסעודים? בוא הולך לסעודים, תשמע. Sir, can you ask a few questions? No. הוא בדיוק סוגר איזה עסקת אנרגיה, תזהר מהארגנטינאי העצבני שם. כן. ומה נשארנו? כן. איפה החגיגות? בצד השני? החגיגות בצד השני כנראה. כן, זה היה קצת לא נחמד עכשיו. מאוד לא. אחר כך הוא המשיך שאנחנו רוצחים ילדים וכזה, לא, הלך למקום טוב. וואו. sidoo kale klibkan wuxuu leeyahay waxaana la sii awaamir talo xukuumadda qatar baa siisay masaacidda ay matalayaan micnaha telefishinadooda oo ah buu yidhi awaamirtaas ah in aan qarino makrofanada Israa'iil micnaha makrofanadana aan qarino wax Israa'iil muujinaya aan soo bandhigin ama calaamadooda fartooda cibriga dabcan qof walba oo arki karo in makrofana caadi wax calaamad aan muujinaynin ay jamaahiirta la dhaxgalaan ay weydiiyaan ayna qariyaan meesha ka imaadeen. לא להבליט את המיקרופונים שאתה ישראלי בגלל מה שקרה אתמול. אוקיי. אבל בסך הכל אם אתה לא מבליט את עצמך כישראלי או מבליט את עצמך רק כאוהד, אז הכל בסדר. מה, ממי קיבלתם את ההוראה הזאת לא להבליט סמלים ישראלים היום? לא, יש פה אנשי ביטחון שיצאו עם המשלחת, והבקשה בגלל מה שקרה אתמול. arrinka runtii wuxuu muujinaya wax badan in wixii xukaamtaas ay sameynayeen uu ahaa habaa'an manthura oo ahaa micnaha caqliyadda iyo qof walba oo muslim ah damiirkiisa inaan la bedeli karin 10 sano 20 sano 30 sano 40 sano hadii ka soo wareegato qof walba oo caqli lagu ogyahay waxaas waxa ay yihiin qadiyadda Falastiin wuu yaqaan dhinaca kale muuqaaladan markaad aragto oo micnaha xaaladan aad aragto waa fariin sidoo kale ku socota hadda aniga hadii aan ahaan la mas'uul Soomaaliyeed طبعا waxaan dhihi lahaa shaki la'aan Soomaalida micnaha sida anaga Etoobiyaanka aan u aragno يعني معناها مثلا أنك مسلمين بأنها قضية فلسطين وين نقصيها وقضية لكن سيدا كلا سيدا أن أو أرجنا إسرائيل إنه تعادل دول مسلم هيسا أيان نظام كإثيوبيا أو أرجنا إنه يهي سيدا كلا دول مسلم أو هيسا وحكى صار درك صار الله حيرة أمسهم الله حيرة مجع الله بحية نبض إلهين الله وحكى صار الله بحية معناها أركتيدا قفك صومالي وكوارك عيدا كإثيوبيان كأ ولقي اسمه بدلاية مركا ومضيع للوقت وإسدال عدو البو آمن سن إن إثيوبيان كانوا حنو حرينا أمن صوم أيان كده جينا وحنو بحيرنا عيدا كان نبض إلهين أنت وكنا ما أنت جماهير عربت الرأي قد أياك وقفلا داد يهود إسلاهايين خلاص ولا بدلاية هذه أنا قضاء إماراتيين هذه أنا قضان سعودي أما هذه أنا قضان يعني حتى وحي هذان بق ما أنت واقع اسمه بدلاية وكوالا أركا شعوبت weydiidan yihiin marka adigan cid walba aaminsan maanta inaad isku daydo in Soomaaliyeed aad ka dhaadhicayso Etoobiyaanka ma ahane
wixii 600 sano u dambeeyeen dhex maray waan iska iloobaynaa khalaas waa nabad ilaalin baa loo xiray maxay ahayd hadaba iska ilooba la shacabka Soomaaliyeed kan ma iloobay waadna isdaalinaysaa macnaha xaalad waxaad ku jirtaa macnaha saraaba dhalanteed ayaad ku jirtaa hadaad u malaynayso in macnaha duruuf hada aad u xun baa taagan laakiin Soomaalidu ma iloobi doonaan qof Soomaali ana kama dhaadhicin doontid inuu Etoobiyaanka yahay nabad ilaaliye inuu yahay wax ka saday dhacaan waxana daliilku ugu filan waxaan ila kulmayeen saxafiyiinta Israa'iiliyiinta galabta waxaa jirta ciyaar u dhaxayso Poland iyo Sacuudiga waana ciyaar yani aad muhiim ah hadii ay Sacuudiga badiyo dhinaca kale maanta waxaa jirta ciyaar u dhaxayso Sacuudiga iyo Poland hadii uu Sacuudiga badiyo waxay ka dhigan tahay طبعا Sacuudiga inuu u gudbay kaalinta labaad yani wareega xiga inuu u gudbay طبعا 6 dhibcood hadii Sacuudiga uu badiyo waxaan aadi doonaa insha Allah meel lagu magacaabo Derby Lusail iskugu imaadaan jamaahiirta waxaan soo weydiin doonaa ama aan soo wareysan doonaa arki doonaana jamaahiirta taageerayaasha Sacuudiga runtii طبعا waa lagu wada farxay ani aad ayaan ugu farxay markuu Sacuudiga guuleystay oo ka guuleystay Argentina mawduucan intaan ku egahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh